wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Naasir Caydiid Maxamed oo weheliyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa 5 gaari ku wareejiyay 5 degmo oo kala ah degmada Weelwade iyo Dararweyne oo la gudoonsiyay 2 seeraf halka degmooyinka Qorolugud og iyo Ballimataan lagu wareejiyay midkiiba gaari nooha gaadiidkan ayaa waxa soo iibisay isla markaasina miisaaniyadda ka bixisay wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda wareejintan gaadiidkan ayaa ka dhacday wasaaradda arrimaha gudaha ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Naasir Caydiid Maxamed waxaana uu sheegay in ay bilowday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland qorshayaal lagu kabayo degmooyinka kuwaas oo laga kaabayo dhanka gaadiidka isla markaana sanadkan 2020 lagu daray 5 degmo waxaana wasiirku gaadiidkaasi ku wareejiyay gudoomiyaasha degmooyinkaasi waxaan ku wareejinaa gaadiid aan u iibinay wasaaradahan degmooyinka dalka oo degmooyin badan bila gaadiid yihiin oo aan doonay maalin sanad walba aan qaar wax ugu darno oo aan u iibinay gaadiid si bal ay kor ugu soo kacaan degmooyinka bila gaadiidka oo degmooyin badan baa la sameeyay qaar isku filan oo waxaan ku wardee wuxuu isku filan yihiin iyo qaar aad u hooseeya markaas si la soo gaarsiiyo ayaa wax bilowday wasaaraddu inay u iibisay gaadiid in miisaaniyadda ugu darto sanad walba dhowr gaari markaas aka 5 gaari oo horeysay ee sanadkan 2020 ayaan doonay inaan wareejino oo 5 degmo ku kala wareejino koow degmada maxaan ku raadayay Weelwade hal gaari baan ku wareejinaynaa degmada Dararweyne hal gaari baan ku wareejinaynaa og hal gaari baan ku wareejinaynaa degmada Qorolugud hal gaari baan ku wareejinaynaa Ballimataan hal gaari baan ku wareejinaynaa marka 5 gaari saasaan ku wareejinaynaa hadii la hada saaka kuwa kale insha Allah waxaan rajaynayaa sanadka dambe inaan qaar kale badan bixin doono hadii la hadaado aad iyo aadna u mahadsantihiin wasiirka hadalkiisa si wata waxa uu ugu baaqay gudoomiyaasha lagu wareejiyay gaadiidkaasi in ay ka shaqeeyaan badqabkiisa iyo dayactirkiisa isla markaasina waxa uu sheegay in wasaaraddu ay la xisaabtami doonto mas'uuliyiinta gaadiidka lagu wareejinayay gudoomiyaasha waxa laga rabaa nin kasta gaariga lagu wareejiyo waa laga xisaabtami doonaa waxa jiray had iyo jeeraale degmooyinka gaariga la siiyaa ama loo iibiyaa 5 mir gudood ku baabaa gaarigaasi waa la xisaabtamay 6 bilood mar baa la jeegaranay gaariga gudoomiyaha degmada laga xisaabtamaya gaarigaana wuxuu shaqo dan guud ama shaqo qaran baa lagu qaban karaa gaari waxaad arkaysaa qaar degmada la siiyay ama ku qoran oo inta caan lagu soo qaado la keenay magaalooyinka ama wax kale lagu soo raro magaalooyinka la keeno waxaas wax soconay ma soconayaan wala la xisaabtamaya aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum tabarakaatu waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaashii lagu wareejiyay gaadiidkan oo ka daran celiyay magacaygu waa Maxamed Xasan Salaamaan gudoomiyaha degmada Dararweyne ee gobolka Sanaag gaariga degmada Dararweyne wasaaradda arrimaha gudaha ku wareejisay waa gaari sayraf ah aad baan uga mahad celinaynaa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud sida hagar la'aanta ay degmada colaada iyo abaaruhu ka jireen ay noola shaqeynayaan noola garab istaageen magacaygu waa Aqal Cabdullaahi Salaamaan Xaaji Axmed waxaan ka socdaa degmada Weelwade waxaan aad uga mahad celinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha gaariga ay nagu wareejiyeen ee degmada oo ah gaari sayraf ah si sharaf leh oo qiimo badan bay noogu wareejiyeen insha Allah sidaana loo ballamayna waanu ilaalinaa anigu ah gudoomiyaha degmada Ballimataan halkan waxaan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda arrimaha gudaha oo nagu wareejisay gaari nooha oo lambarka gaariga noohada silfar ka weeyaan gaarigana lagu wareejiyay waanu ka gudoonay aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa in baahi weyn u qabnay aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadnaqaynaa insha Allah gaarigaasna waanu ka faa'iideyn doonaa waanu ilaalin doonaa wixii dan guud degmadu leedahay oo aad ugu baahnayd baan ugu qaban doonaa aad iyo aad baan mar labaad wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha iyo dhammaan xubnaha wasaaradda baan ugu mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad salaamu calaykum kolabaad wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mahad baanu naqaynaa mahad weyn baanu naqaynaa waa runtooda aad iyo aad baa loogu baahnaa meeshu gaadiid may lahayn yaglaal baa cusub waa la wada og yahay waajibkiin baa gudateen adana waa idinku ducaynaynaa gaadhigaana annaga iyo idinkuba waa ilaalinaysaa annaga idinla ilaalinayna waa Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur iyo Cawl Cabdi Kaahin telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa.